Ma ogtahay in gobollada waqooyi ee Canada ay ku fadhiyaan dhul aad baaxadiisu u weyn tahay oo gaaraya 3/4 meel dhulka Canada oo dhan? Ma ogtahay in dhulkaas baaxadaas ku fadhiyo ay ku nool yihiin kaliya 100,000 oo qof? Ma ogtahay in gobollada waqooyiga Canada loogu yeero dhulkii qoraxda saqda dhexe, taas oo ay sabab u tahay qoraxda oo aanan dhicin 24 saac xilliga xagaaga ah? Ma ogtahay in xilliga qaboobaha waqooyiga Canada aysan qorax soo bixin muddo 3 bilood ah? Ma ogtahay in ereyga Nunavut micnihiisu uu yahay our land ama dhulkeenna luqadda Inuktitut language-ka? Ma ogtahay in gobolka Nunavut ee waqooyiga Canada uu ku soo biiray Confederationka Canada 1999? Ma ogtahay in buurta ugu dheer Canada la yiraahdo Logan Mountain? Ma ogtahay in Yukon ay tahay meesha laga diiwaan geliyay heerkulka ugu hooseeyo Canada oo gaaray -63 Celsius? macluumaada ee intaa dheer waxaan idinkula wadaagi doonaa channelkan. Fadlan la share garee asxaabtaada iyo qof kasta oo aad isleedahay wuu ka faa'iideysan karaa. Fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan macluumaad ku saabsan kooraska iyo kuwa ku saabsan jinsiyadda Canada. Mahadsanidin.